imikana bal xagga awoodda muusiga aynu eegno waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa muusiga iyo sida uu wuxu bedeli karo xaaladaha bukaanka ku jira cusbitaalka Manchester iyo waliba shaqaalaha caafimaadka ee iyagu dadka halka ku jira daryeela. Cismaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya. sidan ma ahan sida lagu yaqaano qaybaha aadka loogu baahan yahay ee isbitaalada, balse isbitaalkan Manchester waxay ka noqotay mid joogto ah. ilaa Juulaydii hore muusikiista ayaa u garaaca muusiga bukaan ku jira isbitaal. waxaana muuqata farxadda ay taa keentay. waxaan is arkay anigoo ku jira qaybta dadka dhaawacoodu halista yahay. waxay ila noqotay mid niyad xumo. waxay ahayd fikrad ka timid Helen Ashley Tyler. intii ay joogtay oo dhan isbitaalka waxaa wax ka bedelay muusig ay koox garaacaysay oo TV-ga ka socday. daqiiqadii aan dareemay in aan mar kale noolahay waxay ahayd mid wax iga beddesha. waxaa dhammaaday dareenkii ahaa in aan go'doonsanahay. kama fikirin xaaladda aan ku suganahay iyo xanuunka ii hayay oo ma aanan dareemin. waa intaan sheegi karay isbitaalka markaan ka soo baxay. waxay durbaba si iskeed ah muusig uga bilowday isbitaalka. waxay go'aansatay in ay bilowdo muusig laga tumo qaybta gurmadka degdega ee isbitaalka, taasi oo keentay wax weyn. shaqaalahana way oggolaadeen muusigaas. runtii waa dareen wanaagsan marka muusiga la daaro ayay xasilooni dareemaan. si aan u ogaanno sida muusigan uu qayb uga noqday isbitaalka ayaa maalin kadib qaraxii Manchester waxaa Richard Felher oo si joogto ah muusig uga garaacda halkan uu kaalmo u noqday muusigeeda qaybta gurmadka degdega. waxaan ogahay in shaqaalaha aysan ku farxaynin. mar walba talada aan helayno ayaa ah intaas ayaa nagu filan oo aan u baahnayn. sidaa darteed ayaan uga dalbaday in aan imaado haddii ay la tahay. mid ka mid ah kalkaaliyaasha ayaa igu tiri toddobaadkan aad ayuu u xumaa. maantana waxa keliya ee naga maqan arrintan ayay ahayd.